qurux badneenaana ka tagaa ma aan inaan qof ku wanaajinayo ma inaan qof ku xumeynayo adeer baraha bulshada inta aan ku jiro weligay inta meel soo istaagay nolosheeda ma dhicin inaan dhahay sadaqa aruurinaa ama qofa waxa lagu sadaqaysta ma dhicin wixii ani muuqii magacii aan ku helay ilaahay isiiyey dadka igu garabsiiyaan meeshaa ku bixiyey sidaan yeelaya waa ani iyo rabbigay ee la xisaabtamay in aqli inaadan samayna waa fiicanta because sadaqada magaca ilaahay waaye waxaadan u dhihinaan fahmaa because xitaa haddaad tahay qof khayr badan 10 senti oo ka mida haddii runtaadu marto maya waa dhimbil naar adoo laga waayo sadaqada jazaak allah meesha ka wada adeer marka waxaan rabaa inaan la hadlo maxamed gabadha yar uu dhalay xalaa la jooga snapchat ka soo duway dadka intooda badan snapchat-ka iga arkay ilmaha inta ma loo ogolay snapchat-ka soo geliyaa inta ka baxay 50 kilomitir gooyay meeshii uu degnaa guriga uu degnaa aan tagay maamada gabadh u dhashay gabar yar oo hal san iyo hal bil jirtay haysataa si fiican oo la soo hadlay waxa ka dhaadhiciyay markay iyada baxday ee shaqada aad marka qaar 2 isbuuc maqnaanay inay cunugtii aan ka soo qaado guri magaalada ku yaal aageeyo markay iyada shaqada ka soo noqotan cunugtii soo ceshato ilaan hooyo cunugiisa uga roon ma lahane way qaadi jirtay cunugta waxay kee jirtay cid iyada qaraabe ay yihiin oo dana location meelaha duurka sii degan oo gey jirtay maamadu iga yeeshay waa soo qaad cunugii hadda caawadan aan kula hadlay guri VIP cunugta ku nooshay waxaa jiro maxamed uu geeriyooday wiil asaga ilma adeer ay yihiin oo xoogaa iska dan yar oo reer leh aa jooga waxaan ka codsaday gabadha inuu haayo wuuna iga yeelay wiilkan waa ka soo wada doonaa maamo kalaa dhashay hadda qofaa qoraal wuxuu ku soo celceliyey inaa aniga kuu jawaabo ma aadan mudnayn lakoo kuu jawaaba haddaa dhahda caruush ilmihii ku tuugsaday haddaa dhahda caruush ilmihii wuxuudu dhacay haddaa dhahda caruush ilmihii ku qaraabanaa haddaa dhahda caruush ilmihii saas yeelaa intaba waa ku saxantaa waa samaynaa ilmihii ku qaraabanaa ilmihii ku tuugsanaa ilmihii xoolahoodan qaadanaa intaas bacdi waxa ka bedeli karta ma jirto there is nothing you can change laakiin ilmahan maanta aabbihii uu hadli lahaa ee uu ordi lahaa ee ka dawareegi lahaa meedwaba uu dhintay dadka ma wada fahmayaan iyagina isku hadli karaano waa ilmo yar yar oo waxaa waxay lahayn haysanin waay waxay cunaan aana maanta haysanin waay inaan baxo oon ilmihii xoogayga iyo waqtigayga ku bixiyay maalinkaa ilmahaas ku guulaysto inaan dadkii ay ka dhashaynayo soomaaliyeed ee waddankii iyo reerkii ciddii inaan geeyo dadkooda ay la joogaan oo dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda iyo waxbarashadooda inay hagaagto maalinkaa ku guulaysto maalinkaas ani waajibkii walaalkaas soomaaliyeed ee geeriyooda iga saarnaa oo adeer iga dhacay waxaa jiro wiilka wuxuu jiraa 13 gabadhan waxay jirtaa 1 san iyo 1 bil wiil waxaa jiray intii isoo wacay idhahay niyo wiilka geeriyooda ah waxaan nahay ilma adeeraan nahoon oo igu dhahay dhanka hooyadiisna ilma abtiyaan ka nahay waxaa ku dhahay meeshuu ka shaqeeyaa weydiyey meeshuu ka shaqeeyuu ii sheegay wallaahi ilaaha iga sareey iyo billaahi ilaaha iga sareey adeer isbitaalku uu ku jiray iyo meesha uu ka shaqeeyo hal roboda u dhexeeya hal robod waa taqaan ama caadiga markii lasoo baxo hal roboda u dhexeeya waxaa ku dhahay maxamed inta maalmoodoo xanuunsanaa waxa ugu weynaa loo sameyn kara ilaan isbitaalku waa bilaashe booqasho in faataxa lagu aqriya eedam u tagtaan dhahay mayo igu dhahay hay dhib ma lahanan dhahay caadi waayo hadda uu geeriyooda aan dugno ana markaas waa iska caloosha dhan maxaa sameynaya wax kale ma ogeynbo xaalka markuu dego oo dhammaaday wuxuu igu dhahay niyo saan in la yeelaa la rabaa intii laga dhaca la rabaa ilmihii waa labadaa ilmihii saana la yeelaa intaa la dhaha baba wuxuu ila soo galay waxaa ku dhahay ilmaha maanta way gaajiysan yihiin maxaa u qaban kartaa anaa qofka meel in lagu soo xiraa qurux badan mogta maxaa u qaban kartaa ilmaha ku dhahay saan waa inta wax ma samayn karin waxaan ku dhahay ilmaha waxa adi u qaban kartid oo adi aa sii kartid adeeraa u tahay abtiya u tahay wax adi aa sii kartid inta qaadid ilmihii u gey anigana waxa u qaban kara ka caruushaana muuqay magaciigna u qabana ani culama igu xiran culamo waaweynaan la hadlay oo tashtay akoona loo sameeyey hal habeenaan live soo galay one night waxaan jooga u malaynaa wax 40 minute ka yar $2,000 akoon ku geliyey waa $2,000 40 daqiiqo wax ka yaraana ku jira qadka muhiim ma ahan inaan sheegay ilmihii tiradaas badanaa u qabtay tiradaas yaraa u qabto muhiim ah wixii waa sadaqo qofkii raba inuu ilmahaas caawiyo
iyo qof kale inuu ilmahaas wax u sameeyo cidna ma kaa xigto tan ani aa u qabtay ani iyo rabbigeyga waay adiga waxa u qabanaysid u qabo haddaa meel la soo fadhiisato meel la soo istaagto ilmihiisaana la yeelaa intaa laga dhac waa lagu qaraabtay yes waa lagu sameynaa ilmahaas adeer hadalkoo ku dheera adeer hadalkoo ku dheera waa kaaga baxaa ilmahaas dhib kasta oo dhabarkooda igu soo gaari karo iyo wax kastoo ilmahaas xumaantooda igu soo gaari karto iyo si kastoo ilmahaas magacii igu dhaawici karo adeer dhabarkaa usoo dhigta hooyadayaan igu duceysa culumaan igu duceysa hore usoo caliidhaha adeer waa ku fahmay insha allah ilmahaas ninkaas walaalkeena uu ka tegey ee agoonta ahne ilaahayna ma dayacayo soomaali maxamedna ma dayacayso adiga oo adeerkood ah ma dayacaysid insha allah taleefankaaga whatsappkan kaasoo wacaa adeer anigana waxa waaye intii aan ilmahaas ku tari karo ama aan ku caawi karo waa ku caawinaa hadday noqoto enerjigayga hadday noqoto inaan ilmahaas wixii ilaahay